الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمورنا الدنيا والدين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإيمان والإسلام من والبعد شوفتا إلهي سبحانه وتعالى هيدوكو أمان صدو ولا ليان سينا هربا وصول شاقنا وحكو جرنا بشي شعبان الفضل قبضنايد وين نشاقناي ضد بداني إناني بشي الشعبان أنا وحوي ور بدن أنا كهينين أما أنا علم بدن كلاهين شعبان وبيش النبي عليه الصلاة والسلام وجو صوم كبدنا كوبي وتوان كبلوا ذاك وبيش النبي وجو صوم كبدنا عليه الصلاة والسلام وما رأيته في شهر أكثر منه صيامه في شعبان وما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. النبي عليه الصلاة والسلام بش شعبان ودم صوما هدانو ودا لما يسترين وحوي بدن كذي أكثر كذي وصومي جري مركاسو انتو ودا صومان ورمضان نسير راعي جري لو بلود أو إسكو حرام لو بلود أو إسراع سن محيطها حكمة صوبانو عليه الصلاة والسلام خير خلق الله وبشر شعبان أسومي جري محيط حكمة كوجرتها سؤاشاس هدي هذه السويدين يسي صحابي أسامة أي النبي عليه الصلاة والسلام ينوي دي وحنو داي النبي إلهي وحن كوارك هذه سومي يا بيشا شعبان هذا سومي يا كوارك محيط هاي علة محيط هاي وحكون دحجرة شعبان محيط هاي فضل يكون دحجرة محيط هاي وحوي سببت هذا سومي سا وحوي بيشو أو دن وحوي محيط إن أنا أقول أيام دورنا النبي إلهي وحوي النبي عليه الصلاة والسلام لما جوابه أيوه سوري الله هذا مركز وقاته بعد الشعبان فضل جدو قانسا كو فالنبي عليه الصلاة والسلام وبلدتك أي موجيهين بين الرجب ورمضان رجب يا رمضان دحيل وجرتها وبرتك وجرتها شعبان تدكو موجيهين تدكو موجين بدني إن إلهي سبحانه وتعالى خير للدوني موياني لبو عملنا ولا قاضع عملك ولا قاضع عملك السنوي قابل قاضي يا إلهي سبحانه وتعالى بلوجيني يا شعبان مركب واحد شعلاني قصو من عملك يا إلهي سبحانه وتعالى كل لوجيه لبدا قodb ugu soo ururiyay bal hadaba qodobka hore istu taagno qaflada dadku ay ku jiraan quraanka iyo sunnadu way amaaneen waqtiga qaflada dadku ay ku jiraan qofka amalka wanaagsan la yimaada salaatul leysha qofka kaca habeenkii ilaahay subhanahu wa ta'ala u sujuuda u rukuuca cibaado ooga wallahi amaani wa bil ashari hum yastaghfiruun qofka salaatul duhada dadku markay suuqa iyo ganacsiga ku kala foofaan إلهي سجوا صون غضب برقدي لما ركعوا ذي كبدن بتوكدنا والله أماني صلاةها شنتوا واي كلا وحوي وقت عدقيهين صلاة المنافقين وحوي تذكر المنافقين تكو هذا حوي صلاة الصبح جمعة كنت كذا في ذمة الله ولا أتكي وحوي صلاة المنافقين تكو هذا وحوي سيدو كلا والله أماني ووقت يدا عيدتكو قفلة كوشران qodobka labaad xisaab xir baa dhaca todoba maalin le 24 saac xisaab xir baa dhacaya todobaadka xisaab xir baa dhacaya sanadka xisaab xir baa dhacaya waxay nabiga calaysay salaatu wuxuu noo sheegay in malaa'iktu waxay isweydaartaan kuwa subax iyo kuwa galabtii ilaahay ay u tagaan subaxii ku yimaada galabtii way baxayaan galabtii ku yimaadana subaxii way baxayaan ilaahay bay u tagayaan marka soo Allah subhanahu wa ta'ala weydiinay marka soo naya adoomahayga ka warama markaasay jawaab fiican bixinayaan misoonaya rabbiyow iyagoo tukanaya waanu ka nimid iyagoo tukanaya waanu tagnay haddana kuwii si leegna kuwii kale waxa weeye wareegayna sidaasay jawaabtaasay bixinayaan marka toddobaadkii waa la mid khamiis camalada korka loo qaadiyay isniinba sanadkii shacbaan baa la qaadaa bishan ay ku jirnay fadliga badan bishani waa bisha camalada kor loo qaaday sanawiga waxaanu jecelnahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inagoo sooman sidoo soobanuhuba u jeclaa inagoo sooma camalkeena kor loo qaado Allah loo geeyo midkeena ma jecla inagoo macaasi iyo dambi ku jiro in ilaahay oo inooga cilmi badan nafaheena
in ilaahay subxaanahu watacaala camalkaaga la horgeeyo midkeenna ma jecla walaalayaal. waxaanu jecelnay inagoo rukuucsan sujuudsan sooman ilaahay u toobadkeenna in ilaahay subxaanahu watacaala isaga oo inooga cilmi badanba haddana loo geeyo masaaxiifteena iyo camaladeena loo geeyo ayaynu jecelnahay walaalayaal. bishani waa bisha fadligaa leh, bishani waa bil cibaado, waa bil soom, waa bil tobabar. weelka marka qofku wax fiican la siiyo, wax wanaagsan qofku marka la siiyo, meel fiican buu u baadi doontaa u gashtaa. subag sixina qof markuu ku siiyo subag wanaagsan markuu qofku ku siiyo dee weel xun oo ducufa waxba ku shuban maysid, laakiin weel baad usoo dhaqanaysaa, markaasaa weliba qallajinaysaa, biyaa ka qallajinaysaa. rabadaan baa inugu soo socota, wax wanaagsan baa inugu soo socdaa. maxaynu rabadaan ku qaabilnaa? waa inaan hadda usii tababaranaa. markaynu kubadda ciyaarayno, markaynu garoomada joogno, marka aynu maxaynu sameynaa? training baa la sameeyaa. ciyaaro horaa lasii sameeyaa, mid saaxiibtinimaa la sameeyaa. garoomada training badan baa lagu sameeyaa. dadku waxay odhan jireen, waa salafkii iyo dadkii wanaagsanaaye, bisha rajab waxbaa la beertaa, beertaa la fagaa, waxbaa la beertaa, wax wanaagsan iniyaha iyo midhaha lagu ridaa. shacbaan waa la biyeeyaa. goormaa la goosanayaa? bisha ramadaan ayaa xasadkii go-ay ayaa la goostaa. walaalayaal, bishanay ku jirnaa, qiimahaasay leedahay. naftayda iyo nafihiinaba waxaan kula dardaarmayaa cabsida ilaahay subxaanahu watacaala, inaan guntiga u xidhanno, bishaas soo dhaweyno, camalada sii laba jibaarno, sii soonno, sii tababarayno, training badan sii samayno. waxaynu ka cararaynaa waa in ilaahay subxaanahu watacaala aynu naartiisa aynu ka badbaadno, jannana aynu galno. taana waxaa lagu gaarayaa dembigaaga aad geysato oo lagaa dhaafo. marka dembi dhaaf aynu doonaynaa. marka birihii dembi dhaafku waa soo socdaa. waxaanu ka baryaynaa ilaahay subxaanahu watacaala dembigeena inuu dhaafo, dembigii waalidkeenu ilaahay dhaafo. mar haddii dembiga lagu dhaafo, ilaahay subxana wataala ku cafiyo, jannadaa daldaris tahay. intaad raaran tahayna naar aamin kama tihid. naftayda nafihiinaba ilaahay subxaanahu watacaala haynoo dembi dhaafo. ramadaanna ilaahay subxaanahu watacaala bashbash iyo barwaaqo iyo wanaag iyo caafimaad ilaahay nagu gaadhsiiyo. walaalaha waan jeclahay. asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.